إليه راجعون waxaan markii hore ka tacsiinayaa musiibadii ka dhacday tuulada Gurley ee ka tirsan degmada Balcad anigoo ah maaragtay dadka ka soo jeeda deegaankaas sidoo kalena ah macallin dadkii meesha lagu laayay qaar ka mid ah wax soo baray u bilaabay abba aad ay noo xanuujinaysaa in maaragtay dadkaas qiimaha badan la xasuuqo ayagoo ahaa maaragtay dadkii indhaha u ahaa bulshadii deegaankaasi u soo baxday dhalinyaro intooda badan ama dhammaantoodba aan dhaho wada waxbartay oo aad loogu weyn qiimahooda aad ayay noo xanuujinaysaa waxaa taas ka xanuun badan in maanta oo laga joogo 10 maalmood in aan warcad aysan ka soo bixin hay-adihii hore u sheegay inay baadidoobayaan baaritaan ku hayaan cid allaale iyo ciddii falkaas geysatay dhallinyaradaasi wax bartay arrintooda waa arrin maaragtay uguba in 8 qof oo samafalayaala ina la soo wado meel la geeyo la laayo waxay u baahan tahay in laga wada damqado dareen xooggan iyo waxqabad la taaban kara laga sameeyo tuulada Gurley dhalinyaradaas waxaa laga waday 8 saac maalmeed mana dhici karto in la yiraahdo ma la heli karo ama waa la waayay ama in la daboolo ma doonayo shala haddaan laga hortegin maanta dadka waxyeelada geystay waa in laga tagaa la soo qabtaa sharciga la keeno aad ayay noo xanuujinaysaa oo ku celinaynaa waana ku celinaynaa min fadlakum hay-adaha kala saari mayno reer federaal iyo reer gobolba waxaan u baahannahay dadkii maaragtay dhibkaas geystay in cadaaladda noola soo hor istaajiyo. Wassalaamu calaykum.